السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأن الصوماليات مسؤولين صوماليات هوينك صوماليات طمان وإن السلام قعنت وقلفه قلب يعني كسلام ولكن عاقل جنرال كان قد ضابنا يدرو وأحمد عاقل سيدا دوغنا مالمها بالرياكشن المقال حساسي وكلية أيام كهذرنا مركان وحاسوب بدنا صوتر معي قار كمية ضد كمان قابك أي صوماليات كده حجرو ماموسك مجا كده حله حدنا كده قاقايو fal iyo ficil ee dadku aynan ka filaynin waxa moodaa marka heerarka guriyaha Soomaaliyeed ee dadka dhalinyarada ee dadka YouTube ku jira ee nolosha YouTube ku jira marka ay kala tagaan in codad muuqaalo iyo waxyaabaha private-ka ah nolosha ay soo bandhigaan warnaantii ficilo aan dhigi karno waa wuxuu cabsi gelinayaa jiilka dambe ee nolosha ku midoobi lahaa runtii laba qof oo caanaba waa kala carar markaan waxaan ka hadli doonaa muuqaalkii ugu dambeeyay ama arintii ugu dambeysay ka dhaxdhacday arin dhulaantii hal wajimada lagu mujimada dhowr wajeelada laakiin waxaan aaminsanahay sheekada inay ka bilaabatay nin inaagis qabi maanta kala tagay shar calafa isku keenay maanta carabka kala geey laakiin ma aaminsano saasaan isku xaganaa markaan waxaan reaction ka bixi doonaa walaalkeen masla oo xogta ugu dambeysay ka arintii muno boss baas runtii youtuber badan oo ku jira fanaaniin far badan wax hal wajiyo lama marka reaction ka bixi doonaa aan isla socono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتي دقيقة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلامت إلين قال أسعدتي المرة والبابا أنا إلين جو أنا إليك بسم الله. أي حاجة مضمونة السلامين مركز اسمه صونا قبل أكسل ولكن مثل حاجة يوتيوب كذا داون السماء يوتيوب كل كسومالي محمد ودان فاطمة خديجة تاعي بخشار كوري سكسرا في النص ولكن تنوض الكاميرا كان فرو سبوا قال أن سوق لنا أو نغطي في رواية داولا ما تسد سدوا ده محل دين سيدا sida la socotaan ba labadan bari arrimo xasaasi ah ayaa iska jiray oo ku saabsan boss baas iyo mura iyo ilhaan arrinkaas meel fara badan ayuu faraha la galay waxba anaga dib ugu sii laabanayno bas waxa jirtay muuqaal aniga aan ka sameeyay oo ku saabsan arrinkaas muuqaalka ugu dambeeyay waxaan uga hadlay arrimo ku saabsan boss baas arrintaas oo ah muuqaalo qawni ah oo boss baas iyo gabdho Soomaaliyeed oo sawirro screenshot laga soo qaaday la keenay baraha bulshada sawiradaas waxay ka turjumayeen wax aan shaxdara ah gabdha Soomaaliyeed oo qaaqaawan oo yani wax fadeexad sameynaya oo hadana screenshot laga qaado si walba ay ahaato waa muuqaalo aan shaxdara ah ama ayadoo soo dirto ama screenshot laga qaado mid ma ahan laba ma ahan saddex ma ahan afar ma ahan shan ma ahan waa dhowr iyo yani 10 antii saaxiibkan wuxuu ka hadlayaa waa xaqiiq taagan mar walbana dhacda xaqiiqda waxay tahay qofka adin noloshaada aamino raban inuu waqti kula qaato noloshaan ay ku midowdeen ma dhihi karo ragnimo mana dhihi karo wax awood laakiin waa dameer xumo laakiin annaga ninkan hadda laga sheegayo inuu screenshot iyo waxba haayo wax cadeena saxiix hadda justi inagu ma hayn laakiin hadii ay dhacdo rag inuu saas sameeyo waa wax ragnimo ka baxsan laguna tilmaami karo dameer xumo ku soo brother amal ayaa anay soo gaartay oo markaa arkay taan ka naxay iska dileeday runtu waxay ku wanaagsan tahay in shaaca laga qaado anigu meeshaas markaan sawirada arkay waxaan la hadlay boss baas oo aan ku iri boss baas waa inaad ka soo jawaabtaa fadeexada hortaala mush inaad arrimo kale ka soo hadasho arrinkan nooga soo jawaab boss baas aad waxa muhiim ah falka adiga hadii hadal mid mar hadii oo aan tahay qof ay moos Soomaali ay taqaano ama qof eedin aqoon qof ka rabto hadii aanan jeclayn inaad hadasho oo maxay qof kale u jawaabto المهم أرنت هذه نبتين إمام إن أرين نرش على من نفط على بين الغشاء وحكوه واجبة جواب إليه كوه جاي إن أتبحث مد لبعض نوحي تاي فرق قفك هدان كوجين إن هتكهذا الشيء ده يوتيوبر تاي ويكون قلبهم تصوت الرجل فرق بدنا وحركة أرنت هنقصوا على السيابوين كردون كرسوا على حدنا الرجال صوت ضبطي محر الرجالني كل ما يكفي ستين وات محقق كل كفي أو حقيقة ودنين هإيمانين أم بإيماجن سمي أول قفنا داوعين لابد قفنا جيس الأمرين ده الساق مركز جيس مرتو أو ضدك إسرائيل إن عدنا وضو هدي هدنا الرجالين صوت ضبطي برا مر والبا مركز حقيقة أصاب إن توحنا نقول إن الرجالين تلا السوق تصل كومون أكثر كوسع برا فريدي الأسلوب جوابتي أيام خير فريدي أو نص تري بوس باس أيام واحد رواحين اللي لو ده سي adigan aan uga bogataan annagana aan uga boganno wixii aan ka dhigi karno mid iyo labana aan ka dhahno waa kan badla dhagaysta codkan boss baas salaantii taageerayaashii inta ka sugaa saaxiib Soomaali oo ku salaam martiya saaxiib
وكاقا نسلانتا اسمه بوس باس وصح جوابك سويني ما شاء الله سيدا انه وصل جوابتنا وكم حصلت هاي والكوسو عبل سلامك بعدي مصلحه ممكن انك تسقبه واحد كسر ثمان يكو خابن سواء قويستان واحد كسر مفهوم لكن nowadays we no falka xun horta media had ku soo badanaa wuxuu yahay nin inaag isqaboorta markay kala tagaan waxyaabi ayaga bareefadku u ahaa inay soo bandhigaan walaaxas dulnimo waay diisnimo waay sababta ninka marka isqabtaan ama naagtaan ay isqabtaan waxaas markaas carafan isku keenay nololan isku jiro waay markaas wixii la soo duuba dad isku faraxsana markaas ayadeen aqliga meeshu aad ma naqaan yeah smart you know like Photoshop وحاجة وحياة كلا أو تعدد أكتب وحاجة this is real كودا مركا والله كنت إلهي أو مركا قبلت بدو الصومالي ميشا لعيوستو هذا واساس حدينين إناكتي سأسمعان أرنت كلية عادكتا إن ميل لوقعو وأرن نين إناكس دايالا ديرغو واسكو sababtoo ah arintaas wajiib badan tahay sida lagu sheegay mar walba oo ma noqoto ma fahanteen xaqiiqada marka waxa dhigi karnaa ilaahay un baa laakiin anaga wax walba dhexdhexaad ka nahayo wax anaga fikir ahaan nagu muuqdo un baa ka hadli doona laakiin wax bareefada hoos ma guud gali doona ilaahay xis maaha oo aniga magacayga meesha ugu soo labaaqo waxa aniga aanan shaqaba ku leeyahay marka horta ilaahay laga baqo runtaas aan mug waxa dhooysan waa samaysay xitaa haddaan sameeyo maxay idinka waajibaa wixii ayag waa la asturaa manaan lama dhigo laakiin dadkan ayagta wareejinaya kolley is another level waa sax ayag waa la asturaa xitaa haddii aad samaysay in la asturo waa waajib marka only thing waxa way dadkan suuqyada waxa way image-keega inay dhulka ku jiiraan haddee wixii ilaahay isiin ilaahay isii walaalayaal maxaa igu diidantan waxa ilaahay isiin ya waxa ilaahay isiin ma ii ogolaataan aniga tiina kuma jiro ma fahamtay war ninka dulman aniga waaye ninka walaashiisa dhimata allah raxma aniga waaye ya ninka xabsi la geeyey aniga waaye ninka isbitaal la geeyey انت dhimatay Allah u naxariisto laakiin xaqiiqda waxay tahay shay kaliya oo qofna bil aadan uusan ka qaadi karin waa haywad ilaahay adiga u qusay waxa rabta ahaaso aniga waay tobandaada liduu ya mataqana guriga markuu soo galay waxaa la yidhi kor 15 daqiiqo okay think about it and take a minute okay haddii aniga la ii dhaho mataqana guriga kor oo 15 daqiiqo sug ilan alaabta koray saaran tahay mug alaabtiin iska soo qaadanayo iska soo bixi laamano ya wallahi billahi abwaay runti ilaahay og runti ilaahay subxaanahu watacaala og laakiin runta loo sheego war adduunka qofka maanta nool beri ma nool war waa la dhimanaa ya aniga haddii la ii dhahay kor 15 daqiiqo الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيلا أقول ماشي السوشيال ميديا وسوف يسا people are sweating man unbelievable كل البهدل كستا يقول سميه يعني الحمد لله رب العالمين إله ما هدي سوئنه فدبه إلهي وترقل هو صح قف والله وحي إلهي وترقل أيا كل عايا بس wuxuu ka hadlayaa laba arrimood oo ka hadlaya waliba aan dhahay saddexda arrimood oo boss ka hadlayo midda ugu horeyso oo aan weydiinay oo aan jawaabta ka sugaynay waxay ahayd muuqaaladan ay shaxdarada ah oo sawirkiisa ku dhagan iyo gabdhahan aadka u burburan oo aadka u neexay meesha uu ka keenay iyo sababta ku kaliftay inuu gabdha Soomaaliyeed muuqaalo uu ka duubo
soomaali maxamedna ay uga fadhiso inuu كبال لا لا عميشو كيرا ما قدوري برادر راتي ميدي Soomaalida arkaasoo sii maraya meel miis ugu xumaayo ku jira marka laba kala ciriiba laba kala isku dhagan hadan waxa ugu xun waxay tahay nin ina hore isku qabo walaalayaal nin ina hore isku qabi see loo xalin karaa mala xalin karo in ay ilaahay ka cabsadaan ay kala istaagaan maahane doodooda meel u qaadi karto malahan ciddaas qaldan ma dhigi kartid sababtoo mar walba ay iska ka dhow adiga sirtooda ma haysid waxba ma ogid soo marka wixii saxan ilaahay baa in intaas lagu soo gaabiyo ayagana ay kala xishoodaan ay kala gaabsadaan wax ka qurux badan malahan haddii kale waxa kugu dhacays in media soo fariisto aad hebel qaldan dadka qaar wax ku dhacay sababtoo haddana saacad kadib waxa leedahay reer gelinaan wada qofka saas ma sameyn way waa ku degdegana ma fiicna ma fahanteen waxay tahay sumcadii iyo sharaftii shalay aan lahaydeen maanta ma leeyin maanta waan isqaantay hadaba ogow minute walba oo waxyaabaha maalayacni aad soo gudbisaan oo noloshiina hore ah qiimihiini dadnimadiini sharaftiini aa hoos ku dhacayso oona ku dhimanayso mar walba qiimo daradaada ay badato maalayacnigaagana bulshadana hoos ku sii geenay walaalayaal kala xishooda shal idinka is doortay maanta idinka kalatay dadka booska nolosha aysan uga banaaneen nin inaagis qabi hare isku dhagaan hadii la hurwa laakiin adiga maxaa tahay youtuber soo dhaxdhaxaad hadaan dhaxdhaxaad kirin faraa kala bax laakiin saacad walba ina mar dhaad xasaasi idin wada marna reergelin aan soo dab dhigto waxaas qiimaha ku dhimanaa hadaan ogeyn had ugu brother channelka naga daawanay wax malaaqil aniguna waa aqal inta muuqaal mid caan kan kulmi doono waa anigoo lisaasiyo nabadgelyo